ilaahay naxariis jannaha ka waraabiya Dhagalaab aadan suulay iyo wiilkiisa Siciid Dhagalaab ayaa u geeriyooday masiibadii ka dhalatay dabkii xalay ka kacay gudaha degmada Caabudwaaq waa aabe iyo wiilkiis ama hal qoys oo si gaar ah u saameysay masiibadii dabkii xalay Dhagalaab ayaa goordhow waxa uu dhintay dabka waxyeeladiisii kadib markii jirku uu bararay oo ay waayeen taqaatiirta la tacaalaysay xidid ay ka quudiyaan waxaana geeridiisu ay timid markii laga soo dareeray aaska wiilkiisa oo isaguna horey ugu geeriyooday isla dabkaasi habeennimadii xalay waxaa jira dad gaaraya ilaa 8 ruux oo ay ku jira ruux haweenaya kuwaasi oo isugu jira kuwa buka oo dabka ku gubtay iyo kuwa neef qabatoobay dadka aad u liita ayaa waxaa ku jira darawalkii waday baabuurka dabka uu ka dhashay iyo 2 ruux oo ku sugnaa kaalinta shidaalka lagu shubayay qaar ka mid ah dadkii u soo gurmaday ee ku sugnaa madasha markii xalay dabka uu ka kacay oo la hadlay warbaahinta ayaa yiri xalay markii aan furnay oo ay tahay saacadu halkii saac iyo adigu bar meelaas ayaa waxa dhacay qarax aad u weyn oo kaalin shidaal oo dhabarkayga dambe ka dhacay labada qol oo isku dhagan qolka shishe waxa uu ahaa baqaar raashin qolka sakana wuxuu ahaa kaalin shidaal waxa ayaan daraa oo magaranaysa masiibo ah in ayadoo baawur damdamisa oo dadka beesha reersada ay gacantooda ku soo gadeen uu yaalo in annagoo soo saa'imiin oo soo afurno tabcaan ah aan xoog halka ku daminay khasaare weyn oo naf iyo maal baleen meesha ay ka dhaceen tusaale marka kaaga soo qaado wiil iyo aabihiis ayaa wiilkii xalay wuxuu qaay 9 saac odageena saacada haddaan hadlayo adigu 40 daqiiqo ka horeysa ayuu dhintay ilaa 8 qof oo afarna ay macnaha khasaaro ka soo gaaray dabka afarna naqasku uu ku dhagay oo hadda nima aniga saaxiibna uu kamid yahay ayaa jira khasaaraha waa khasaarihii toddobaad macnaha kaalintii toddobaad oo Caabudwaaq oo taalo oo gubato weeye magaaladana waxa yaala baabuur dadka lacagtii laga qaaday lagu soo gad maalmo bana saasa dadku u laanaya qodobka labaad oo soo jeedinayo reer Caabudwaaq waxaan dhihi lahaa markii la isku qabsado boos 20 mitir sidaan isku leeyno waan naqaanaa sidaan gaari baabuur damdamisa u soo gadan lahayn oo aan ilmaha iyo xaafadaha iyo waalidiinta aan u badbaatan lahayn falkeed in la gala haboon siibo weyn ba aad meeshan uga dhacday marka ilaahay horta jabri hasiyo marka koobaad dadka waxaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay inuu bedel khayr qaba ilaahay inuu siiyo mid kale waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah waxa isla qabteen waxa isla hal isgarab istaago nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam المؤمن كالمؤمن كالجسد الواحد بين نبينا يسال هل جسد بينه وضنا markii ruux masiibo ku dhacdo hadaan wax la isla qaban waxba ma hagaagayaan qaaradan siday ahaayeen baqaaradu baqaaro caalami ah ahaayeen hidaal raashin wax walba yaalay way gubteen dadka islaamka waxaan ka codsanaynaa nabad qaba oo hadda fiyo oo waxaysta ilaahay sidaas waa yeeli karaa oo arkayaa dadka in loo gurmado oo dadka dhaawaca loo gurmado yaan leenahay ma aha markii ugu horeysay oo sidan oo kale kaalin shidaal ay ku taala degmada Caabudwaaq oo dabka kaco waxa jira jaaliyada